dhakhaatiirta isbitaalka magaalada Kismaayo ayaa ka codsaday ummadda Soomaaliyeed inay gurmad u fidiyaan wiil yar oo dhaawac halis ah ka qaba xubinta taranka kaas oo dhaawiciisa wax looga qaban waayay isbitaalka magaalada Kismaayo wariyahana Cabdiqaadir Jaamac Maxamed Gawoobe ayaa faanta warkan inoo haya Cabdiqaadir Cabbaas Cabdiraxiin waa wiil da'diisa aan ku qiyaasay 12 sano jir dhibana ku ah isbitaalka magaalada Kismaayo waxa uu joogay magaalada Baraawe waxa uu la noolaa aabihii oo indhoolo ah iyo hooyadii oo curyaan ah waxa ay u direen baadiyaha Baraawe reer jooga si uu xoolaha ugu raaco isagana halka ugu noolaado reerkii uu la noolaa ayaa si xun u jirdilay habeenkii marka uu seexdo ayuu isku kaadin jiray wiilkan si xun ayay u garaaceen reerkii uu la noolaa oo ay ku hiisteen sababtoo isugu kaadinayo habeenkii ilaa heer uu xubintiisa taranka xariga isaga xiro cabsi uu ka qabo in la jirdilo awgeed muddo badan ayuu xariga ku xirnaa oo isku celinayay kaadada sidoo Cabdiqaadir ii sheegay kadib waxa soo gaaray dhaawac halis ah reerkii uu la noolaa waxa uu ii sheegay inay ka warhayeen balse aysan ka caawin dhibaatada haysatay reer deris la ah ayaa arintii ogaaday kadib waxay u soo qaadeen dhakhtar jooga Baraawe nasiib darro wax uu ka qawmay dhaawac ilmaha yar waxaana loo soo qaaday isbitaalka magaalada Kismaayo halkan ayuu ku sugan yahay isagoo xubintiisa taranka ay ku jirto tuubo kaadidana aysan ka istaageen waa kan Cabdiqaadir Cabbaas Cabdiraxiin oo iga warbixinayo xaaladihii uu soo maray Cabdiqaadir Cabbaas Cabdiraxiin okay xagee ka timid marka Baraawe waan gartay Baraawe yaa la nooleed abtiga la nooleed miya okay hay dhibaatadan say ku soo gaartay marka dhibaatadan aryan raaci jiray yaa u raaci jirtay ariga marka gabara u raaci jirtay miya okay waa gartay maxaa marka dhibkiisu ku gaaray sheego dhibkiya aryan raaci jiray arma sariirtii aan ku kaadiyay haye sariirtii markii ku kaadiyay waa igaraacday sax markii igaraacday cabada dambe anna waa iska xiray waa la garaacan ka cabsi jiray waan gartay markii biswaaleegi Baraawe leegi xariga leegi soo gooy sax bisaasan noqoto kasoo ya Baraawe xarig kaaga soo gooy marka dhakhtaryaasha صح maxay ku dhayeen marka kadib markii laga soo gooyay markii soo wax meedin daawo la isu siiyeen qalajin kadib baadiya ku noqotay mise Baraawe joogtay inta la soo waday Ismaaciil buu soo waday صح ka waran waalidiintaada maxay ku dhayeen waalidiinta markii aan soo baxayaan waxay dheen baxawarta meesha wartaada okay hooyada maxay qabataa marka hooyadii waa naafe miya ayaabana indhoole dhaqaatiirta magaalada Kismaayo ayaa ii sheegay inuu dhaawac halis ah ka qabo cunugan yar xubintiisa taranka isla markaana aan dalka wax looga qaban karin oo uu u baahan yahay dhaqaatiir dibadda ah canuga arintiisa hadaan maartay wax yar ka taataabto 13 maalmood buu isbitaalka joogaa diif badan baa ka muuqata murugo badan bay nagu beertay arinta uu nooga sheekeeyo canuga ku dhacday wuxuu noo sheegay aabihii inuu indhala yahay hooyadiina lugaladay curyaan tahay reer aad sabool ah oo curyaamiina inuu canugu ka dhashay kadib markuu yara kuusnaaday baa suu noo sheegay dad qaraabadooda oo adhilay ah yaa loo geeyey si uu nolol uga helo iyagana wax u taro waa ilmo yar wuxuu noo sheegay gogosha inuu ku kaajay dibeetana la garaacay garaacitaankii markii uu adkeysan waayay wuxuu go'aansaday inuu xubinta taranka xadhig ku xidho si kaadidu ay u joogsato xadhigii muddo dheer buu ku xidhnaa wuxuu sababay xubintii taranku inay maaragtay caabuq badan keento bararto waxyeello weyna ay soo gaadho xanuunkii markuu u adkeysan waayay muddo dheer kadib waa la ogaaday dad reer baadiya bay ahaayeen way isu yimideen xadhigii oo aad ugu dhuujisan xubintii taranka xubintiina aad u bararsan tahay bay arkeen waxaa u suurtageli weyday xadhigii inay ka gooyaan Baraawe waa loo soo qaaday halkaas xadhigii lagaga gooyay islaan habaryar oo Kismaayo degan baa dibeetana doontay oo isbitaalka Kismaayo keentay xubintii taranka oo caabuq badan ka muuqdo kaadidiina iska socoto oo uu niceshan kareynin baa naloo keenay dhinacii caabuqa waan ka daweynay dawooyin fara badan oo qalajeela la siiyay caabuqii hadda uu ka baaba'ay laakiin xubintii taranka dhaawac weyn baa gaadhay oo ah sumadii xadhiga
dhexda lagaga xidhay oo dhexda maartay ka sii muuqataa jirta kaadidii ma ceshan karo way iska socotaa baag baa hadda ugu jira ay kaadidu maartay ku dhibdhibcayso oo ay ku socoto wayna ku adag tahay isbitaalka Kismaayo cilada inuu saxo wuxuu u baahan yahay dhakhtar neurologist waxaana suurtagal ah neurosurgery inuu u baahdo taasna hadda isbitaalka Kismaayo suurtagal kama aha anugaas dhibaatada xooggan ku soo dhacday kana soo jeeda reerka saboolka ee curyaamiinta aabihi hooyadiiba waa curyaan midna waa indhalaayahay midna waa lagu laayahay wuxuu u baahan yahay uu Soomaalida hadday dibad joogaan iyo hadday guda joogaanba uga baahan yahay in loo gurmado oo wax loo qabto kow caafimaadkiisa in la raadiyo xubintii muhiimka ahayd ee taranka ahayd dhibaatadaas buu ka qabaa oo ka soo gaadhay dhakhtar ku habboon iyo isbitaal ku habboon in la geeyo oo bal hawsha in wax laga qabto in la isku dayo aad iyo aad baa muhiim u tahay ma ceshan kara kaadada hadda wuxuuna ku cidlaysan yahay isbitaalka Kismaayo garab ayuu u baahan yahay si loo caawiyo caafimaadkiisa maamulka isbitaalka magaalada Kismaayo ayaa gacanta ku hayo oo la tacaalaya xaaladiisa inkastoo aan waxba loogu qaban karin isbitaalka magaalada Kismaayo